uun oo ay samada furan tahay. haddana waxaan rabaa inaan si gaar ah ula hadlo habaryarayaasha kale ah Aamino Dhool, Farxiyo Fiska, Farxiyo Kabaryar iyo dhammaan gabdhaha heesta. allaha xoojiyo muslimiinta, allahna hanuuniyo qof waliba oo qoloocan. habaryaryal ilaahay ka baqa, raga jirkiin ka asturta, adduunkan waa laga tagayaa. maxaad ilaahay u sheegaysaa markii lagu horgeeyo, markii lagu yiraahdo miyaanay ku soo gaarin aayadahayga? maxaad sheegaysaa? habaryar maalintaas ma jiro cid kuu tarjumaysa, mana jirto marmarsiyo. habaryaryaal dadkaydin sacbinaayo ha u malaynina inaydin jecel yihiin oo fan idin yihiin, laakiin ilaahay naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya inaysan idin jecleen. maalinta qiyaamana idinma sacbinaayaan oo ma idin taageeri doonaan, oo waxaad weynaysaa meel ay ka baxeen. habaryaryaal ilaahay qurux waa idin siiyey, taas shaki kuma jirto. haddana ilaahay ku siiyey quruxdaas kuma dhihin dadka tustus, laakiin wuxuu ku yidhi qarsoo cidna ha iska tusin ilaa maalinkaaga. habaryaryaal maanta halkay marayso waa u jeedaa. habaryaryaal gadaal taariikhda u raac. aaway fanaantii idinka horeysay oo weliba idinka magac dheeraa, idinka codka wanaagsanaa, idinka qurux badnaa. ma rabo inaan halkan magacod ku sheegay maadaama ay geeriyoodeen. habaryaryaal ilaahay dartiisa idin jeclahay sida ay idin jecel yihiin dadka fanka idin ah, sida ay ayga sheeganayaan. laakiin aniga dembiga idinkuma jecli, laakiin ilaahay dartiis. ma rabo inaad berito aad shalayso oo qoomamaysaan, waayo cadaabta aakhire ciyaar ma aha. haddaad isleedihiin weli waad yartihiin oo markaad duqoodan ayaad tooba keenaysaa, habo cidnama oga goorta u dhimanayo qofka. waxaan ognahay inay dad badan ku dhintaan iyagoo heesaha muusiga raacaya. sidaas daraaddeed hadda ayaad waqti haysataa intaadan dhiman. habaryaryaal aaway taageerayaashii fanaantii idinka horeysay xaggee ku dambeeyeen? camalkaaga oo keliya ayaa ku raacayo ee taageerayaashaada kuma raacayaan. ee ilaah ka baq, weliba badankiin waxaad tihiin hooyoon caruur leh. caruurtaas waxay noqon doonaan ilaah ayaa garanayo, laakiin waxaa lagu faray inaad ku dayasho u noqotid oo aad wanaag u horseedid, si ay berito u noqdaan kuwa bulshada wax fiican kusoo kordhiya. habaryaryaal ma u soo istaagin inaan sharaftiina aan wax u dhimo, mana u soo istaagin inaan qalbigiina wax u dhimo, laakiin cadaabta ilaah ayaan ka baqaya maadaama aan jecelahay oo aad tihiin dad bulshada wax fiican kusoo kordhin kara. waxaad tihiin kasoo kow heesaha dad haybad xambaarsan. sidaas daraaddeed haddaad diinta ku dhabaaqdaan haybadaas inaad liibaanaysaan. habo waxaad dhici kartaa inay dhibsataan ama dadka taageerayaasha idin ah i dhibsadaan, laakiin waxaad ogaataa inaan idin quuri karin cadaabta aakhiro. sidoo kale waxaa arrintan ay khusaynaysaa dhammaan wiilasha heesa ee aan ka dhowrsanin gabadha ajnabikaga ah. heestaa iyada markeeda horeba ay dembi ahayd ayaa haddana gabdhihii been loo sheega oo lagu yidhaahdaa waa idin soo saaraynaa ama magac ayaan kuu yeelaynaa, siday gaaladaba ay isticmaalaan. sidaasna gabdhihii sharafteedii halkaasuu ku dhumo. magac iyo sharaf midna uma baahnid, ilaahay ayaa mar hore ku siiyey. waayo haddaad qurux iska dareemin maadan soo istaagin dadka hortooda. marka qurux ilaah ayaa ku siiyey, umana baahnid dadka inay ku khiraan. waxaa keliya oo lagaga baahan yahay inaad ku xamdisid oo ku shukrisid. waan idin raaligelinaya dhammaan fanaaniintii rag iyo dumarba. macnahayga ma
walaalnimo haddii aad i dhibsataanna marka hore ilaaha ayaan dembi dhaaf weydiisanaya marka xigta idinka ayaan idinka dalbanaya inaad i cafisaan